wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin kusoo dhawaada warka saacadda qodobadana waxaa ugu dooran wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo war ka soo saartay toogasho maalinimadii Khamiis iyo Arbacada laga fuliyay deegaanada maamulkaasi duqeyn lagu burburiyay xaruntii warshada qaraxyada kooxda Daacish ee buuraha Calmiska ee gobolka markaasi Ingiriiska oo gacanta ku dhigay nin ka hortagay nin kale oo kitaabka Quraanka ku gubayay safaaradda Turkiga ee London. soo gudbinta warkan waxaa idin suura geliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. markale barqa wanaagsan warkii oo dhan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa goordhow war ka soo saartay toogashooyin laga fuliyay gudaha magaalada Baydhabo maalmihii isxigay ee Khamiista iyo sidoo kale Arbacadii kuwaas oo lagu fuliyay xukunkaasi toogashada ahaa 3 qof oo laba ka mid ah halkiis ay ku wada eedeysnaayeen halka midka kalena uu ku eedeysnaa kiis isaga u gaara waxaana shacabka iyo madaxda maamulka koonfur galbeed Soomaaliya taageereen go'aanadaasi maxkamadeed dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya toddobaadkii la soo dhaafay waxa ay qaaday tallaabooyin loo riyaaqay kadib markii ay tiirka cadaaladda horgeysay rag dilal ka geysay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay maxkamadda gobolka ayaa Arbacadii iyo Khamiistii la soo taagay xukunno ku fulisay 3 nin oo lagu helay dilal ay ka geysteen gudaha magaalada Baydhabo waxaana lagu qisaasay fagaaro ku yaala ama fagaarada dadweynaha la isugu keenay ragga la toogtay waxaa ku jiray Mukhtaar Maxamed Nuur iyo Nuur Maxamed Xasan oo hore dil iyo kufsi ugu geystay marxuum Madluul Cabdiladiif Macalin falkaas oo argagax weyn ku abuuray bulshada ku nool deegaanada maamulkaasi sidoo kale waxaa isna qisaasta lagu fuliyay gacan ku dhigil Isxaaq Aadan Ibraahim oo hore u dilay Aadan Maxamed Aadan dhammaan tallaabooyinkaasi waxaa si weyn loogu taageeray maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana wasaaradda diinta iyo awqaafta koonfur galbeed oo war-saxaafadda soo saartay ay sheegtay in ay taageersan tahay xukunnada qisaasta ah ee lagu fuliyay gacan ku dhigilayaashaasi wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxay si buuxda u taageeraysaa xukunka qisaasta ah ee lagu fuliyay gacan ku dhigilayaashii geystay dilalkaas bareerka ahaa wasaaradda waxay si dhow ula socotaa xukunka lagu fuliyay gacan ku dhigilayaasha falalkaasi argagaxa laha ka geystay deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wasaaradda waxay si buuxda u garab istaagaysaa xukunka cadaaladeed ee lagu fuliyay gacan ku dhigilayaashii geystay falkaas ayaa sidoo kale lagu yiri dhammaan bulshada ku dhaqan deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan ku boorinaynaa inay si buuxda u garab istaagaan dadaalada cadaaladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wado ayaa sidoo kale lagu yiri ilaahay isaga oo ka hadlaya inay qisaastu ay nolol tahay quraankiisana waxa uu ku yiri walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulul albaabi la'allakum tuflixuun dhinaca kalena duqeymo lagu burburiyay keedkii qaraxyada ah ee kooxda Daacish ayaa waxa uu ka dhacay buuraha Calmiska ee gobolka Bari faahfaahin dheeraad ah waxay ka soo baxaysaa weerarkan dhanka cirka ah oo xalay laga fuliyay aaga buuraha Calmiska ee gobolka Bari halkaas oo ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah Daacish wararku waxay sheegayaan in duqeyntan oo ahayd mid si aad ah loo soo qorsheeyay lagu beegsaday warshad qaraxyada u farsameyn jirtay kooxda Daacish sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay Puntland qoraalku waxa uu soo saaray taliska howlgalka ciribtirka argagixisada ee Puntland waxay ku sheegeen in duqeyntaasi lagu burburiyay warshada qaraxyada sidoo kale sameyn jirtay biraha gawaarida ee adeegsadaan kooxda sidoo kale waxaa qoraalkan lagu xaqiijiyay in la dilay dhammaan xubnihii ka tirsanaa Daacish ee ku sugnaa goobta la duqeeyay oo ahayd bartilmaameed muhiim ah Puntland waxay sidoo kale intaasi ku dartay in ujeedadu ahayd inay ka hortagaan fikrado waa markaasi baxsadka xubnaha kooxda Daacish si aysan hoos ugu soo degin buuraha hoostooda oo ay haatan ku dagaalamayaan labada dhinac si kastaba xaaladda ayaa weli kacsan waxaana sii xoogeysanaya dagaalka Puntland iyo Daacish iyada oo markaas ay barbar socdaan duqeymo ay fulinayaan qaar ka mid ah saaxiibada caalamiga ee taageera Soomaaliya waxaana ka mid ah Mareykanka iyo Istaga Imaaraadka Carabta intaasi waxay ahaayeen qodobadii gudaha markana dibadda haddii aynu eegno waxaa markaasi nin muslim ah uu ka hortagay nin kale oo kitaabka Quraanka Kariimka ah ku gubaya afaafka hore ee safaaradda Turkiga oo ku leeyahay London ninkan ayaa fagaaraha laamiga ah la soo istaagay isaga oo gubaya Quraanka Kariimka ah waxaana intaa kadib xigay nin muslim ah oo ka soo baxay dhisma aan sidaas uga sii fogeen waxaana uu weeraray ninkii isaga oo ka joojiyay kitaabkii Quraanka uu gubayay arrintaas ayaa noqotay mid si weyn haatan looga hadalhayo gudaha dalkaasi Ingiriiska
booliisku waxaa la sheegay inay ku raajoogaan ninkii kitaabka gubayay iyo ninkii kale si labadooduba ay u dhageystaan. guud ahaan waa naga intaa warkii subaxnimo waa warkii barqanimo ee Hiiraaweyn waad ku maasantiin dhageysigiistan iyo maqalkeen xiga sidaas iyo amaan Allah. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraaweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net. Radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa uu wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraaweyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhageysan karayaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com.